tusaale ahaan lowgani uu low ka hooseysii samaysmay markii tareenka laga soo taabato lowgii hore uu low ka hooseey sameynay kadib kor u kacaysa lowgiisu calaamadahan ama tareenkan waxaa lagu yaqaanaa down trainka oo mar walba samaysta hoos mid kasii hooseeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo saaxiibyaal dhammaantiin waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Muuqaalkiina caawa wuxuu ku saabsan yahay falanqeynta isbuuca maadaama ay tahay haweeney soo galayso Isniin sida caadiga ah haweenadan oo kale intuu suuqa uusan furmin waxaan samayn jirnay falanqeymaha isbuuca lacagaha aan rajeynayno weekend inay fursado ka jiraan meelaha ay heli doono jihooyinka ay aadi doonaan sidoo kale waxaa xusud mudan inaan sidoo kale falanqeyn ku samayn jirnay niyuusyada weekend soo baxayo iyo saameynta ay leeyihiin. So intaanan qaab technical analysis ah aan falanqeynteeni u bilaabanin ugu horeyn waxaan soo fiiri doonaa weekend niyuusyada jiro iyo waxyaabaha ka rajeyn doono iyo saameynta ay leeyihiin. So qaybta niyuusyada haddaan tagno weekend niyuusyada ugu badan wuxuu kasoo bixi doonaa kaadka JPY-da iyo Euro-da. Waxaa xusud mudan in doolarka asigana uu keliya hal niyuus kusoo bixi doono niyuusyada weekend soo bixi doono maadaama aniga doolarka ku firiireeyo ma jiro niyuus saaid u weyn in doolarka soo bixi doono keliya waxaan fili doonaa maalinta jimcaha inuu soo bixi doono saacada markay xaggeega ka tahay 7:45 ayaan rajeynayaa in niyuus high impact leh ama saameyn saaid leh uu kasoo baxo doolarka. So waqtigaas kaa u dhimin doono waxaa sharaxaad badan noogu baahan qaabka technicalka fahamkeena. So sidaan wada ognahay badanaa analyskayga waxaa ku bilaabi jiray DXY-da waxaan hore kugu sheegay in DXY-da jihadeeda aad ogaato iyo kuu fududeynayso in lacagaha doolarka ugu horeeyo iyo base currency loo yaqaano jihadooda ogaato iyo sidoo kale kuwa doolarka gidaalka raaco kuwa dadka loo yaqaano jihadooda ogaato. So lacagteeni kuwa hore falanqeynta ku samayn doono ama inta ugu horeeya falanqeynta ku samayn doono waa DXY. Waxaa ujeednaa in DXY muddo uptrend ku socoto hore ayaan muuqaaladeeda hore ugu soo sharxay sababta doolarka uu soo kac aad u weyn u sameynayo sababta ugu weynna waa interest rate kor loo qaadayo iyo inflationka waddanka ku dhacay. So inta interest rate kor loo qaadayo doolarka sare ayuu u socon doonaa oo ma sameyn doono wax hoos u dhacaa. So interest rate ayaa sababta ugu weyn sidoo kale waxaa xusud mudan in weekii hore aan soo dhaafnay niyuuskii kasoo baxay CPI-da uu asigana sidoo kale positive u yahay sidoo kale niyuuskii kale doolarka kasoo baxay ee PPI loo yaqaano asigana inuu noqday news positive ah oo labadoodiiba waxay inoo sheegayaan in doolarka uu sare u kac u sameynayo uu kor u kici doono. So doolarka waxyaabaha sare u kac saaid ku sameynayo waa kuu sheegay interest rate ee dowladda ama bangiga qaybta federaalka ay sare u qaadayaan sababta ugu weyn ay tahay in dadka buying power-kooda ama awoodda ay wax ku iibsanayaan dadka ay aad u fara badatay taasoo sabab u ah in hoos loogu dhigo dadka lacagaha kharash gareynayo inay hoos u yaraadaan. Sababta ugu weyn keliya interest rate-ka kor loogu qaadayo waxay tahay in lala dagaalamo ayadana inflationka ama sicir bararka kaasoo hadda kor u sii dhaafay 9.8% inflationkii ugu sareeyay muddo 20 sano ugu dambeeyay ee Mareykanka ka dhaco. So haddii aan soo laabno DXY-da fursadaheeda technical analysis-ka haddii aan fiirino waxaa kuu hor ujeednaa in DXY-da bartaan maalinta CPI-ga uu soo baxayay ee kor u kac u sameysay ay jibisay ay meeshii ugu sareysay oo bartaan oo waxaan aragnay high cusub oo almost waxay gaartay 109.00. So waxaan sugaynay in kasta meeshan kusoo sameyso kadibna high kale kasii weyn uu sameysmo laakiin sidaas ma dhicin oo waxaa dhacday inay dib u soo laabato. So weekend waxaan ka rajeynaynaa haddii technical analysis-keeni aan dib ugu laabano ama aan fiirino haddii trendkeeni aan soo qaadano aan ku qabano lowgii ugu hooseeyey anigoo looyaasha isku qabanayno. So qaybteeni koray haddii aan sameysano channel kale waxaan arkaynaa in doolarka uu ku dhex jiro jihadaad qod badan oo marba labada dhinac uu kasoo taabanayo. So hadda marka waxaa ujeednaa in channelkeeni mar walba oo doolarka sare waxa uu sameeyo waxaan ujeednaa ilaa dhowr taabasho in meesha kaysano 2 taabasho almost kan waa 3 taabasho 4 taabasho taabashadii shanaad inaan meesha ka kaysano oo mar walba doolarka markuu kor u kaco sida caadiga lacagaha markay uptrend ay sameynayaan waxay ku socdaan
structure ama baatamo uu leeyahay ee uptrendka lagu yaqaano ah in high uu samaysto, highgii low ka hooseeyo samaysto, highgii la jabiyo higher la sameeyo, high kale kasii sareeyo, kadib low yar la sameeyo, higher la sameeyo, low yar, higher low. So exactly dollarka hadda wadada ugu socdo waa wadada uptrend ah. Mar walbo annaga haddii reer trendline aan nahnay, trend is your friend. Trendka mar walbo waa inaad raacdaa. Trendka mar walbo jihada uu jiro waa inaad aadaa. Tusaale ahaan haddii aad aragto trend uptrend ah, iska ilaali weligaa inaad sal aad ka raadiso. Keliya wax laga raadiyo waxay tahay inaad buy ahaan aad trade ugu raadiso. So marka hadda waxaan ujeednaa in taabashadii shanaad almost uu sameeyey uu soo taabtay. Sidoo kale bartaan waxaa xusuusid mudan haddii aan ayadana fiirino structurekeedii in loogii hore uu ku aadan yahay ay tahay support aad u adag. So marka waxyaabaha aan ka filayo DXY-da waxay tahay in uptrend ay samayn doonto oo bartaan kor ugu soo kici doonto, kadibna aan rajaynayno meeshii sare ama high hore in la jabiyo uu high cusub samaysmo. So marka waxyaabaha ka rajayn doona DXY waxay tahay aniga xaggayga confirmationkayga 100% inay sii samayn doonto oo buy ay sii aadi doonto. So haddii lacagaha kale dib u fiirino ama falanqeymahoodii aan galno, lacagta ugu horeyso aan falanqeynteedii samaynayno waa USD CAD. So USD CAD maadaama dollarka jihadiisii aan soo ogaanay, waxaa inoo fududaanayo USD CAD jihadiisa aan soo ogaano ayadan si fudud ku ogaano maadaama dollarka uu mar walba hogaaminayo USD CAD ama base currency uu yahay. So waxaa ujeednaa ayadana in uptrendkeedii ama supportkeedii ay jibisay oo waxaan aragnaa in meeshan support adag uu ahaayo 12 May ee timaaday, laga soo celiyey, hoos u soo dhacday, kadib sare kac oo samaysay 17 June ee imaaday, laga soo celiyey, almost soo kacday handale July 22 imaaday, laga soo celiyey. Markii dambe waxaa aragnay in 14 July ay jibisay. So marka hadda waxyaabaha ujeedna waxay tahay in breakout-kii retesting oo meesha ka dhacay ee retest soo samaysay. So ayadana waxyaabaha ka rajayn doona waxay tahay in confirmationkeedii ay sii wadato oo aan ka fiirino sida meeshan supportga ee dhowrka mar ay imaaday laga fuligari lahaa ama waxyaabaha ka dhici doona. So waxyaabaha ka filayna waxay tahay at least in trendkan ay soo taabato, kadibna ay uptrendkeedii sii wadato uu higher kale uu meesha ka samaysmo. So USD CAD ayadana waxyaabaha ka filayo ama waxyaabaha ishu u hay doonaa waxay tahay inay buy ahaan doonto oo buy ay ku socon doonto. Anagaaskeenii labaad waxaa ka dhigi doonaa ayadana lacagteena xigtay noqon doonta USD GBP. So USD GBP waxaa ujeednaa in ayadan muddo uptrend ay u socoto ay buy aheedey. So USD GBP kuma degdegi doono ilaa confirmation fiican helno. Waxaan sugi doonaa inay bartaan timaado, kadib waxaan fiiri doonaa confirmation meeshan inaan ka helno ama momentum candlestick inay meeshan noogu soo muuqato. Haddii ay meeshan rejection ka samayso, kadib buy ayaan sii raaci doonaa. Haddii aan ka aragno hoos u dhac inay samaysatana waxaan fiiri doonaa sida meeshan support resistance uu bedelo, kadibna hoos ayaan u raaci doonaa. Mar walba waxaan sugi doonaa confirmationka ugu weyn in bartaan ay timaado, bartankan wixii ka dhaco ayaan tradekan buy ama sell no go'aamin doona. So wixii update ah oo trade ideas ku saabsan groupka soo dhigi doonaa inshallah. Haddii muuqaalkan markii ugu horeeyay uu yahay, fadlan linkii description iyo groupka Telegram kusoo bir si macluumaadkan oo dhammaystiran halkaas ugu hesho. So lacagteena xigto ayadana waxay noqon doontaa oo USD GBP waxaan ku fili doonaa ayadana confirmationkeeni markay bartaas timaado ayaan buy sell waxay noqoto u fiiri doonaa. So lacagta xigto aan fiiri doono ama lacagteeni saddexaad waxay noqon doontaa euro USD dollar. Euro US dollar waxaa ognahay in eurada ay wajahayaan dhaqaale burbur, sicir bararkoodu aad u furbatay, dhibaatooyin badan oo Yurub ka jiro sida gaar ahaan dagaalada ka socda Ukraine, taasoo keentay in eurada ay hoos u dhac aad weyn ay samaysay. So haddaan fiirino eurada almost waxaan ujeednaa in downgrade aad weyn ay gashay oo hoos u dhac u samaysay. Midda ugu darneed ee eurada ku dhacday waxay ahayd in weekani taariikhda 20 sano meeshii ugu hooseysay ay gaartay, taasoo la micnaa in qiimaha dollarka iyo qiimaha eurada ay isku mid noqdaan, weliba ay kasii hoos marto. Aan aragnay
in meesheedii ugu hooseysay almost qiimihii halkii dollar oo la mid noqday 0.99 euro. waa taariikhdii meeshii ugu hooseysay ee timaado. waxaa ognahay in yuurada la aasaasay ama lacag ahaan platformkeeda la aasaasay 2002. so yuurada marka ayadana waxaa ka rajayn doonaa ama saddex ahaan waxaa inoogu diyaarsan inaan sugno bartaan wixii ka dhici doono ama waxyaabaha ay ka samaysan doonto bartaan hadda aan taagannahay oo ah meel aad u muhiim ah. waxaan rajaynaynaa in wiigani uu news badan kasoo bixi doono yuurada. sidoo kale midowga Yurub ay shaqo yeesheen waxyaabaha ama waxay ka samayn doonaan lacagta qiimo beelka ku dhacday yuurada oo hadda almost qiimaha yuurada iyo qiimaha dollarka ay isku mid yihiin. laakiin maalintii Jimcaha ama 15 July ay xitaa ka hoos martay oo qiimaha yuurada ay gaartay 99 halkii dollar ay u gaaray 99. so marka waxyaabaha ka filayna ayadana waxay tahay in confirmation-keena ugu weyn bartaan aan fiirino waxyaabaha ka dhici doono maadaama area aad u adag ay tahay. so aniga ahaan waxaa ka fili doonaa in yuurada ay ayadana soo dhici doonto kadibna aan arki doono wax meeshan ka dhaco ama confirmation-ka meeshaan siiso. at least waxay imaan doontaa halkeeda dollar ayay kusoo laaban doontaa. kadib ayaan fiiri doonaa haddii breakout aan ka helno kadib markii test ka helno yuurada waa sii sargareyn doonaa sal ahaan ayaanu sii raaci doonaa. so yuurada iyo waxyaabaha ka rajaynaya ayadana euro USD dollar waa intaas waa kasii socon doonaa oo lacagteena xigta waxay noqon doontaa GBP USD. GBP USD si lamid ah maadaama lacagaha dollarka ugu dambeeya ama kuwa kuwaad iska yihiin ayadana waxay sameynaysay hoos u dhac aad u ballaaran. haddii aan time frame ama 4 hour waxaan arki karnaa in GBP USD ayadana ay hoos u dhac waday. so GJ ama GBU waxyaabaha ka rajayn doona ayadana waxay tahay at least inaan trailing-kaani ay soo taabato. trailing-ki waxaan u jeednaa in dhowr mar markii trailing ay imaaday rejection ka dhacay dib u laabanaysa mar walba ilaa almost waxa ka xiisan hadda markii shanaad. so marka waxaa fiiri doonaa inay soo timaado bartaan kadib GU waa sargareyn doonaa oo ilaa qaybtan hoose ayaa tagi doonaa. haddii aan ka aragno wax lower low in lowgan hoose wax kasii hoosey kadib aragno yuurada GB USD sida ayuu sii socon doontaa oo waxaa u jeednaa mar waliba ay trend soo taabato in tusaale ahaan lowgani uu low ka hooseeya sii samaysmay markay trend laga soo taabato lowgii hore uu low ka hooseeya sameynay kadib kor u kacaysa lowgii. so calaamadahan ama trendkan waxaa lagu yaqaanaa down trend oo mar walba samaysta lowgii hoose mid kasii hoose. so marka waxyaabaha ka rajayn doona ayadana waxay tahay in lowgani hore hawada lagu cuno markay meeshan confirmation kasoo qaadato kadib inta timaado aan fiirino in low cusub meesha ka samaysan doono. haddii low cusub ka samaysmo taas macnaheedu waxay tahay in hoos usii socon doonto GBU ama GBU dollar hoos u dhac sii samayn doonto. so waxyaabaha ka rajaynaa wiigan ayadana GBU dollar waa sida in sii xado. so lacagteena xigto aan ayadana fiiri doono waxaa waaye AUD USD. so AUD USD maadaama keliya aniga lacagaha dollarka aan ku trade gareeyo waxaan arkaynaa in channel fiican ay ku jirto position aad u muhiim ah ay taagan tahay. so AUD USD mar walba waa isku taariikh isku history ay sameeyaan isku dhaqaaq ay sameeyaan isku qaab ay u dhaqaaqaan. so marka waxaan ogeynaa in channel qurux badan ay hadda ku jirto channelkaasna mar walba ay respect gareynaysay inta ay gudaheeda ku dhex jirto. so waxaan aragnaa channelka almost xilliguu soo bilowday inay tahay 16 June ay channelkani marba hoos u taabanaysay marba kor u kacaysay marba kor u taabanaysay mar hoos u kacaysay. so waxyaabaha ka rajaynayna hadda waxay tahay position aad u muhiim ah ayay taagan tahay oo level hadda ay taagan tahay waxaa ujeednaa in dhowr mar levelkan markay timaaday marna support isku bedelay marna isku bedelay resistance isku bedelay. so marka waxyaabaha ka rajayn doona ayadana waxay tahay at least in channelka weyn ay soo taabato kadibna hoos u dhaceedii soo wadato kadibna confirmation-keeni ugu weyn wuxuu noqon doonaa bartaan markay timaado haddii aan ka aragno wax lower ama in lowgan horey low ka hooseeyo uu samaysmo ayadana waxaa rajayn doonaa AUD USD inay saas fiican doonto. so waxyaabaha ka rajayn doona waa inta wixii confirmation oo daily ah ama trading sida ku saabsan waxaan kusoo wadaagi doonaa telegram ayagoo faahfaahsan. so telegram-keeni kusoo bir haddii aadan hore ugu soo bir. so waa kasii gudbi doonaa oo lacagteeni xigay ayadana waxaan ka dhigi doonaa NSA US dollar NSA USD mar walba saan hore ku sheegay
waxay ishabahaan ama isku eg yihiin AUD US dollar maadaama isku structure ay yihiin isku dhaqaaqan ay yihiin labadooda. So haddaan fiiriso AUD USD NZD kalama garanaysid oo labadooda waa isku setup haddii aad fiiriso. So waxyaabaha ayadana ka rajayn doona si lamid ah maadaama isku dhaqaaq ay yihiin AUD US dollar inay salkeeda soo aado at least kor soo taabato channelkii kore ama main channelkii soo buuxiso kadibna waxaa ka rajayn doonaa inay hoos u dhici soo wadato haddii positionkan aan ka aragno low cusubna waa sii sawiraan doonaa oo waxaa rajayn doonaa at least ilaa trend inay tegi doonto. So falanqeynteeni lacagtii ugu dambeysay NZD US dollar ayay heeday. So intaas ayaan kusoo gebin doonaa waxaa rajaynaa inaad wax un kala dhexabki doontaan wixii trade sadab ah iyo wixii update ah waxaa soo dhigi doonaa groupkeeni telegramka hilmaami fulan in channelkan uu wareejiyo subscribe noo saarto si dhiirigelin oo noqoto. So muuqaalkan intaas kusoo gebin waxaa laga tagay sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakatuh.